su-aashani waxay leedahay nin le xaaskaygii ayaa sigaarka ayay cabtaa muddo badan ayaan arrintaa ugu dul qaadanayay waana ka waaniyey balse waxba kumay qaadan waanadeedii waxbana kamay soo qaadin arrintaas sheekhow ila tali ayuu leeyahay ninkaasi taladayda waa uun talada sharcigan ku siinaya rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi afar ruux baryadooda lama aqbalo buu nabi sallallahu alayhi wasallam afarta waxaa ka mid ah nin qaba haweeney akhlaaq xun oo aan furaynin buu nabi sallallahu alayhi wasallam haweeney akhlaaq xun ninka qaba oo aan furin nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam baryadiisa lama aqbalo sax furitaanku waa dhib badan yahay duruuftan hadda aad ku nooshihiinna waa ka sii daran yahay laakiin haddana haweeney sigaar cabtaayey waxay soo wadataa ka badan soo ma laanna sigaarku waa xaaraam qaطci waa xaaraam qaطciya haweeney sigaar cabtaayey ilmaheeduna sigaar unbuu cabbi doonaa mashaki baa ku jira midaas ilmaha ay ku dhashana sigaar bay cabbi marka ilaahay subxaanahu wa tacaala mid ka khayr badan ha kuugu bedelo mid ka khayr badan ilaahay kuugu bedelo rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi man taraka shay-an lilah cawadahu allahu khayran minhu ninkii shay ilaahay dartii uga taga wax ka khayr badan buu ilaahay ugu bedelay subxana wa tacaala iska waanwaanso oo la hadal oo waani oo wax u sheego laakiin haddaad ka quusato yacni mid ka khayr badan ilaahay kuugu bedelo subxana wa tacaala rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi alطayibaatu lilطayibiin yacni waxa weeye dumarka wan wanaagsan iyo ragga wan wanaagsan way isleeyihiin khabiisaadka xunxunna ragga xunxun bay isleeyihiin shimbirba shimbirkiisuu la duulaa ruuxu hadduu hagaagsan yahay naag xun naag uma noqon karto haddii ay haweentu wanaagsan tahay nin xun inay naag u noqoto waa ku adagtay nolosha lafteedii baaba adag nolosha lafteedii waa adagta marka ma dhahayo waa xaaraam oo inaad la joogto waa xaaraam hadday tukanayso yacni la joogiddeedii iyo qabiddeedu xaaraam ma gaadhayso laakiin haddaad leedahay ila tali taladan ku siin lahaa waxay tahay gabadha waaniyo arrinta ka waaniy haddaad kari weydana wax kastan ilaahay kugu bedelo wabillahi tawfiiq